halkii maalku noo daaqayay maxaystu noo joogtay waxa maanta laga soo warramay weydin maqasheene ma yeeraanku baahida afkiiba ciidda mariyeene mucsar inaan rabo looga bixin moodka iyo noolka milicdheerka liileeda baarmaanku ulanayo samadoo marin lagu asuro dhaysta midabeeya aradka macsuun loo fishiyo madarka doogaasha haradoo maligan dooxadoo la isu mari waayo iyo mirirahan jajaliisoo kacsiyo midabka jeegaanta mawaqal ismuujiya hilaac maayadaha dhiibay mahigaanta aahiya midaan maalmo naga qaadin oo eebbow dhurtii muruxsanay dibu magooleeya oo maanku waa ulanayaayo farax la muunsoodo oo mayay aroortiid iyo miro habeenkiiya oo galbeedka miraha oo rabow barina maansheeya waqooyiga usoo maro furtoo koonfurtala maaxa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن دقيستيال ميل كستا وعدكي قد كسو قاريو كنا سودو برنامج سوغانيتكي إذا كي من جري روبتا ورورنتي سوغانتي سويالكا قلنصور تضبات كنا دقيستيال برنامجه وحمرتي قواه أبوان محمد حسين شامع وحكماوي كما قعدير أبوان حكماوي ومد كان بدا مانسيها ندى فولاتكا لنا السوغانتا قواه ودالين رضا أنا راهد أختي ذا نحيكو جرتا وحرقا لنا السوغانتا aadka ugu faraha dhudhuban curinteeda iyo runtii xafidideedaba kalkan ayaa hadaba barnaamijka uu inaga la qayb qaadan doona hadii rabbi xaqiisa laga ogolaado ugu horeyna aan ku soo dhaweeyay barnaamijkeena suugaanta abwaan xikmaaw waad mahadsan tahay mawlid waan dhawahay walaal waan fadhiyaa amaliyo waad mahadsan tahay sidoo kale waan kaga mahad celinaa waqtiga qaaliga ah ee aad noo soo hurtay abwaan maxamed xuseen jaamac dad badan oo laga yaabo inay suugaantaada wax ka maqleen ama dhageysteen waxay isweydiinayaan محمد حسين شامع حكماوي واكما بمعنى قرم ودشي ان حقو كدشي وقتيدي ugu horeysay ee suugaanta salaankeeda oo cagta soo saarana xilli ma ahayd bal hada tafaafayn kooban naga siiso dhinaca taariikh nololeedka waad mahadsantahay mawlido walaalo waxaan dhashay xilliyeedii la igu sheegay hilaadii 78 meelaha 78 kadahaasan dhashay waxaan ku dhashay gobolka Togdheer Oodweyne deegaanka Oodweyne halkaasaan ka galay macaamadii quraanka iyo iskuulka dugsiga hoose waatay marka ma miyibaad ku dabalahaydoo kulliba dee dhaqanku dhinaca miyigu badan yahay mise magaalada ku dhalatay miyi baan ku dhashay miyi kulli nin waliba mar ayuu salaanka suugaanta soo fuulaa yaraantaadii sidaad isku ahaydeen ma sax xasuusataa wixii ugu horreeyay aad istiraahdo waa erey suugaameed oo suugaan baad curin kartaa والله كل way dhowr mid baan isleeyahay oo inkastoo aan aad u hubin laakiin waxa kamid ah 10 sano aan oo gaarin baa taaska la xirayo markii maxadada aanu dhigan jirnay ee ardaydu dabarka la soo istaagay ardaydu qaar wuxuu sheegi jireen ee mid hore aanu soo dheerayno aanu dadaalo ayaan ana oran jiray waxba aanu sheegaya markaas aan gabay ugu sheegi jiray aanu garanaynin gabay 10 sano aan oo gaarin baa taaska la xiray tarbiibtii aan qabay baa ahayd taxanadiinay culimada tibaaxdii iyo wacdiga uga dhagtaaga tafsiirkana sheekha dhigo aan ka taabacay ilaahay markii uu tagay nabiga toolmooni shanta tiir islaameed ayaa loogu taadligay salaam bay isla taageen ambiyadii nuurka tiigsaday kuwaas ay ugu horeeyay baan malaynay in waqtiyadii marka ardayga ahayd waan arday aan garan baha way aynu nimadno dhinaca suugaanta wixii marka taaba galay amba xilligii hanaqaadka suugaanta ogaantay gabayo badan oo aad curisay baa jira bal aynu ka soo qaadana qaar kamid ah inagoo wadciga ba xaaladda waqtiga jirta bal hada ka tusaale qaadanaynaba amba gabayada quseeya soo qaadanayna waxaan ka wadaa xilligan waxa jira waqti habaareed oo runtii deegaamada Soomaalida ay degto aad moodinay aad ugu wada jirto gabayo roob doonta ku saabsan baad lahayd kuwaas bal qaar kamid ah hadii aynu soo qaadano mawlidood maasantay walaal uu jiray barigii abaartii khatarta ahayd miyi iyo magaalaba la isku waxaan ku la wada sinmay oo dadka qaar siba u bixiyeen qaar wax u bixiyeen ayaa niman abwaanabaan meel isugu nimi tabeetana nin odaya uu yimi wuxuu ku yiri bareeda intii nin maanta maxay soo keenay roob gabaga tirsan roob doon markaas ay ma kan ugu yar kaasa imanaya oo kaasa tirinaya tabeetana niman badan iga waaweyn way ahaayeen laakiin waxay u ixtiraameen waxa gabayga quraan ku jira bay oran jireen moogta saama kan soo galay quraan gabay roob doon tiri waana markaan saa u fadhiistay ku maxaan roob doonta ma tirisid adigu dhowr nin baa fadhiya warniyo tiri gabay lagu xijay maasumid guri wallahi waxba laga qorin hatta aad gabay roob doonta tirin waan bilaabay bismillah waxaan idhi abwaan diiray dociyo dareen baa midkii duray amuurka dadnayd iyo warbudabada keena
marna dabin qarsoon iyo shar buu kaaga digayaa danjire weeye ku daacado eebba kuu diray waana haddaad dareen leedihiin iyo ficil dadkayga we ila daya xusuusaha waxbaa iiga daalacay danabkii bashiir iyo raggii deeqda lagu siiyey durdurkii hadraawiye gadhlihii laga dambeynayey iyo duqii arxandulle baa murtida lagaga dayda caynab baa ku daanshoon lahaa deelka maansada dunji baanu soo wada leenaho waygu soo degay anna waxaan kusii dayanayaa dariishadoodii afqaloc halkii uu degay bay darintu iitile dawankayguna sidii qaasin buu doobti leeyahay durduurta iyo faalladana tabtii roob da-aanahaye dayr waa sidiisii balaan ugu dinahiyey baan niman abwaanaba soo qabsaday halkii ay duqeytadii hore dhigeen danabka suugaanta anna doorin maaye haddaan sii dhex kala dooda dooroonayaashii horeba way idinku daaleen rabbina deeqma waayine waxaanu roobla dii waay diintiiyo wallaha beenabaa daaray samadaas daruuraha raxmaadka iyo roobabku way di'i lahaayeen galabtuu darooro ayaad hay-adaha uga dacwootaan rabbina deeqma waayine waxaanu roobla dii waay galabtuu darooro ayaad hay-adaha uga dacwootaan gaaladuba duqyaankooda way darajadaysaa halkii aad daweyliid ayaa dabagelaysaane boqolaal digniinood ayaa kaaga soo degaye distoor baana ka raacdin waxaygu eebba soo diraye wax qur-aanka lagu doorsadaana kuuma soo degini rabbina deeqma waayine waxaanu doogla bixi waaye ee uu diirta uunugu salliday kaga damsiinaysa dariiqad istaagtaba dhul baa laysku dilayaaye dunuubtaa gasheen baa sidii daadka soo jabae dabaxaya unbaa sidii baalalay damis ku siiseen ilaahay kuwuu soo diraye nabiyaduu doortay waxaygii ku soo degay warkii daha laga sheegay dadabti iyo alloolkoodii baa dabamartayseen dudadana halkii gaaban buu bahalku doontaaye daleel iyo bannaan iyo hadduu dabac ka soo waayo isagoo dibna haruugayuu dib uga laabta musku hadduu ku dadan yahayna dugaa kuuma soo maro duunyaduna ma buurnay hankaa laga duloobaaye wixii ku danahaa iyo samihiiba waa lagaa dadaybu markii aan dunuubta iyo fisqiga iyo daya amuurteena rabbi baa dulqaatay ee dhulkaa hoos u degilaaye dadka waxaa abaaraha ku maray waa dignin culuse inuu deeq ilaahay cirkani darara mooyaane waar inta aad dalagantiin ciriyo roob ha doonina eebaan xujadii taasaan kaga baxay markaa taa hore oo gabay runtii murti iyo miisaanba leh waxaad markaa ku sheegaysay oo aad ku tilmaamaysay in dhibaatada iyo aafada dhacaysa ay sabab u tahay dembiga aadamuhu samaynayo waa hagaag aynu ka nimaadna gabaygaas waxa isaga qudhisi jiray gabay kale oo aan isagana dhegaystay oo ku saabsanaa isaga qudhiisu roob doonta duca ahaa isaguna mar hadda kaana haddaad inoo raaciso mawlida wuu jiray mudaakiraha laydhaa markii aan kaa hore tiriyey ayaan mar dambe arkay meel baan soo istaagay nin odayo weyn dukaan buu la hadlo wuxuu waa heblow gabadh waxay soo ahaayeen buu yidhi war caruur lacagtii hebla gabadha ilmaadeen ahaayeen buu lacagtii dooni barh ka sii qatay reerkii baa laga soo deeriyey wadkii bal ii eeg gabadhii buu inankii eegeega u mashquulsan buu eegay wuxuu way qaadatay ninkii baa madaxa qabsaday ilmaa ka soo daadatay gabaygaa ku jirta iyo nin 80 marayo ilmadu qoysa maradiisa markaasaan ilaahay dadka ugu noqo ilaahay na barya buu ilaahay laga qoosan maaye gabaygii baan bilaabay waxaan idhi haddaan gabay abwaan maaxiyaa muujad ka istaarin oona ararta ugu muujinayo midhaha suugaanta waanu falaga meeriyo wacyiga ugama lugaynin ma macaana weedhaan aqoon loogu meeldayne wixii mudanka taariikhda galay mahadha kuu reebiye sidii mayayga roob iyo jirkaan moosin dhacayaae almajiiro tixday muhatee laabtaydu mudaakiradii xalay halkii maayadu ii geysay miidaan dhex galay iyo nimcadii la imuquursiiyey allaha manfaca qaybiyeenay madhanin deeqdiisu si aan ma dhinto ma dhalo oo abiye malaha awlaade meeri si aan ilaahay u qoray loo muctaas qabay mustajaaba dawcaynan nahayna waynugu maleeyaane allahayow madhaan ha igu dirin kuu martaanahaye oo deeqdaada haymiin adaan meel ka dayahayne oo hayga maanicin waxay muhatalaabtaydu cirkan muuqan waayiyo dhulkaa mudhu xabaaroobay deegaantan madoobaatay iyo dahabka maaroobay miyi iyo magaalaba dhibtaa lagama saysiiyey halkii maalku noo daaqayay maxaystu noo joogtay waxaa maanta laga soo warramay waydin maqasheene ma yeedhaanku baahida afkiiba ciidda mariyeene mucsar inaan rabuu looga bixin moodka iyo noolka milicdheerka lileed abaarmaanku ulanayo samadoo marin lagu asuro dhaysta midabeeya aradku macsun loo fushiyo madarka doogaasha haradoo maligan dooxadoo la isu mari waayo iyo mirirahan jajaliisoo kacsiyo midabka jeegaanta mawaqal ismuujiyo hilaacmaayadaha dhiibay mahigaan da-ahiyo midaan maalmo naga qaadin oo eebuu dhurtii muruxsanayd dibu magooleeya oo maanku waa ulanayaayo farax la muunsoodo oo mayay aroortiid iyo miro habeenkiiya oo galbeedka miraha oo rabow barina maansheeya
waqooyiga usoo marog furtoo koonfurtala maaxa magacyaala adag iyo kuuganay ka maansooday iyo booyadaha macbuudka iyo inuu mayaygu soo baaho oo midhaha oo soo onkaday maalka wada gaaxsho iyo madarkii da-aayu qalbigu miyay ileeyahay mustajaaba ducaynan nahayna way nagu maleeyaane allahayow manaan haygu dirin ku martaanahaye oo deeqdaada haymiyin adaan meel ka dayahayni oo hayga maanicin waxay muhatalaabtaydu afartan ama lagu doogsadiyey gabay mulaaxdiide dhulkoo muraxa inuu eebbahay midho ka soo saaro oo uu moorada bedelo mirirba suu doono oo maanta adigoo badqabay marad bukaan keeno oo caafimaad lagu maslado miyirka gaadhsiiyo ma biciidsanine waa sharciga ii mubaaxa ah maqaadiirtan eebbahay anigoon muran ka keenaynin oon marnaba ka iimaan xumayn meeriskiiyo qaybta mahad weeye wixii eebbaha aad ka mudataaye maqaarayda leediya naflaha oonku marinayo umusha mujaha haysatee silic maryaadaysa nin 80 marayay ilmadu qoysay maradiisa iyo meydkan biyihii lagu maydhilaa magana loo waayey iyo maayadahan hor lay keentay baa muusanowga leh lama maqal iyo waxa ka dhacay lama maleeyaane mucsur inaan rabo looga bixin moodka iyo noolka mahigaan da-ay iyo midaan maalma kala qaadin oo eeboo dhirtay muruxsanayd buu magooleeya oo maanku waa ulanayaayo farax la muunsoodo oo mayay aroortaydii iyo midho habeenkiiya oo galbeedka midhaha rabo barina maansheeya waqooyiga kusoo marog furtoo koonfurtana maaxa magacyaala adag iyo midaan maalma naga qaadin hooyadaha macbuudka iyo inuu mayaygu soo baaho oo midhaha oo soo onkaday maalka wada gaaxsho iyo madarkii da-ayu qalbigu miyay ileeyahay mustajaaba ducaynan nahayna way nagu maleeyaan allahayow manaan haygu dirin ku martaanahaye oo deeqdaada haymiyin adaan meel ka dayahayne oo hayga maanicin waxay muhatalaabtaydu afartan ama lagu doogsadiyo gabay mulaaxdiidhe mid kalena dadkaan odhanayaa ii munaasib ah masiibadan dhacaysa iyo abaaraha lala maryaadayo la inalama maageen haddaan muuminiin nahaye mayaygaa inoodii ilaha milayga jiilaan inay samadu naga moosantaa waa abaalmarine shaygii mamnuucee kitaab lagu mubaaxaynin iyo maqdiciya waxaa lagu dhaqmaa muxarimaadkiiye inay samadu naga moosantaa waa abaalmarine kitaabkii ma loo noqonayaa waa la gees maray dhaqankaa mijaha loo rogay madaxii hooseeyo iyo muduq baa hidihii looga baxay miiganaan jiray dadka waxaa abaaraha ku maray waa macaasida hay-ad baana mas-uul looga dhigay shay kastoo mudane ma yeedhaankii aad duudsideenna mawlo kuu bari macaluusha badeen unbaa gadaalaa ka mudateene waa mooskiisibaa guudka kaa maraye kitaabkii ma loo noqonayaa waa la gees maray kitaabkii ma loo noqonayaa waa la gees maray